soo dhawaada barnaamij cusub oo aan u bixinay hidanka ilbaxnimooyinka, kaas oo aan kaga hadli doono marxaladaha isbedbedelaya ee caalamka, kuwaas oo maalinba meel u jihaysanaya. Fadlan daawade, haddii aad nagu cusub tahay, nagu soo biir adigoo subscribe saaraya, gambaleelkana furanaya si aad ula socoto barnaamijyadeena dambe. siyaasadda caalamku waxa ay galaysaa nidaam cusub, indheergaradkuna kama ablaablayn inay sheegaan aragtiyo badan oo ah sida uu mustaqbalku noqon doono. Kadib qarni iyo badh soo ifbixi nidaamka cusub ee caalamiga ah ee heshiiskii nabadda ee Westphalia, colaadaha galbeedku waxay badankood u dhexeeyeen amiiro iyo boqorro, keliditalis iyo boqor dastuur leh. Ujeedkuna waxa uu ahaa sidii ay u ballaadhin lahaayeen maamulkooda, ciidankooda, xoogagooda baayac mushtareed. Taasina waxa ay keentay inay abuurmaan dowlado qaranno ah iyo bilowgii kacdoonkii Faransiiska. Colaadihiina waxa ay isku beddeleen kuwo u dhexeeya waddamo, halka markii hore ay u dhexeeyeen boqorro. Intaas kadib, natiijadii ka dhalatay kacdoonkii Ruushka iyo falcelintii ka dhanka ahayd waxa ay colaadihii waddamada u beddeshay colaado afkaareed. Markii hore waxa ay u dhexeeyeen shuuciyadda, faashistiga, naasistiga iyo dimuqraadiyadda xorta ah, halka markii dambena ay u dhexaysay shuuciyadda iyo dimuqraadiyadda xorta ah. Waqtigii dagaalkii qaboobaa, colaadahani dambe waa shuuciyadda iyo dimuqraadiyadda xorta ahe waxa ay noqotay mid u dhaxaysa labada quwadood ee adduunka. Hase ahaatee, midkoodana ma ahayn waddan dowlad ah marka aad eegto Yurubtii hore. Labadooda mid kastaana waxa uu jiritaankiisa ku qeexay dhanka fikirka. Kadib dhammaadkii dagaalkii qaboobaa, siyaasadda adduunku way beddeshay wejigeedii galbeedka uun ku koobnaa, waxaana xudun u noqotay xidhiidhka ka dhexeeya ilbaxnimada galbeedka iyo ilbaxnimooyinka aan galbeedka ahayn. Marka aynu ka hadlayno siyaasadda ku salaysan ilbaxnimooyinka, ummadaha iyo dowladaha aan ilbaxnimada galbeedka ahayni uma noqonayaan dulmanayaal taariikhda gumaysi ee galbeedka, balse waxa ay galbeedka kula biirayaan inay noqdaan dhaqaajiyayaasha iyo qaabeeyayaasha taariikhda.